ballaaran oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayo 400 oo arday oo ka qalin jabiyay maxadka sidko ee magaalada Burco kana soo qayb galeen mas'uuliyiinta gobolka waxbarashada madaxda jaamacadda Golis waalidiinta ardayda iyo marsharaf badan ayaa maanta lagu qabtay Hotel City Plaza ee magaalada Burco maamulaha maxadka sidko Cabdiqaadir Maxamed Cabdilaahi ayaa sheegay in dufcadan qalin jabinaysa ay tahay tii 12aad ee ka baxda maxadka sidko ujeedada halkan isugu nimay oo ah qalin jabinta ardayda marka ka qalin jabinaysa college-ka sidko oo tiradu gaarayso 400 oo arday oo dhameystay marka cilmiga IT waxyaabaha uu sidko bixiyo iyo marka college-ku bixiyo oo ah marka cilmiga ICT-ga oo la socotaan maanta ardayda fadhida ay marka isugu jiraan arday dhameystay marka cilmiga ICT-ga iyo kala duwan qolooyinka qaar ay qaateen marka 6 bilood qaar ay qaateen marka muddo marka sanada iyo qaar marka muddo 3 bilood oo koorsooyinka dhameeyay warsaabxuunka gobolka Togdheer Master Ubaxle gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada Xasan Jaamac iyo gudoomiyaha jaamacadda Golis Cabdixakiin Maxamed Cabdilaahi oo xafladaasi ka hadlay ayaa waxa kamid ah hadaladoodii 400 ee maanta ka qalin jabiyay ICT-da ee dugsigan sidka college aad iyo aad baan idin hambalyeynaa waxaan aad u bogaadinayaa ardayda maanta ka qalin jabinaysa halkan ee tiradoodu ka badan tahay 400 oo u kala qaybsan afartaasu qayb certificate iyo qayb diploma waana dafcadii 32aad runtii waa ilaahay maadii mar haddaynu maanta isugu nimid ama aynu marayno in ardaydii gobolka ay maanta sameynayaan website-yo iyo barnaamijyo waayo waa himiladii aanu soo wadnay in ka badan 20 sano kii waxaan daraysiinayaa bulshada reer Burco in aanu u diyaarinay barnaamij macnaha xagga ICT-ga inaanu maanta diyaarinay barnaamijyadii ugu dambeeyay xafladan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxa kale oo ka hadlay waalidiinta ardayda qalin jabinaysa iyo mas'uuliyiin kala duwan kuwaas oo dhamaantood uga mahad celiyay maamulka iyo macalimiinta maxadka sidko kaalinta wanaagsan oo gaadhay maxadka sidko ayaa waxa uu ka mid yahay dugsiyada xirfadaha ee ku yaala magaalada Burco ee ay wax ka bartaan ardayda aad u badani isla markaana ka aflixeen kuwa kale aad u badani Kays Axmed Digaale Home Cable TV Burco.